asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamij yar oo gaaban oo aynu ku eegi doono maanse gaaban oo ka hadlaysa taariikhdii ururka snm iyo halgankii dheeraa ay sameeyeen maansadaasi oo uu tiriyey abwaan xamse maxamed jaamac hudhud qabanaynaa maanta tix kooban oo la yidhaa boholaha xardhiran. boholaha xardhiran waxay ka warramaysaa halgankii loo soo galay waddanka ee shahaadadii asram iyo howlgalladii ay fuliyeen ayay si kooban uga warramaysaa. waxay soo baxday sanadkii hore bishii oktoobar 2018. nasiib darro sanadkii hore maan duubin, laakiin waxay inoo suuro gashay sanadkan inaan duubno. maansadani badda ay ku aroortaa waxa weeye baddii maqasha. waxaan u yareeyoon baddii maqasha oon gabay culus uga dhigi waayay ama dheeraar had iyo jeeraale. waxa ciddanu la hadlaynaa waa dhallinyarada. markaa dhallinyaradu si aan ugu fudaydiyo waxaan doonayana aan ugu gudbiyo ayaan uga dhigay badda maqasha liajli daat. tixdanna waxaa la yidhaha boholaha xardhiran. waxay ka warramaysaa sidaan idiin sheegay howlgalladii ay fuliyeen ee ahaa birjeex operation, ee ahaa allahuma salli calaa maxamed birjeex operation, mountain operation, allahuma salli calaa maxamed idkii oo full scale warst dagaaladii idkaa ayay ka warramaysaa. sidoo kale waxay ka warramaysaa howlgallal kuwaa la xidhiidha ayay ka warramaysaa. tixduna waxay ku bilaabmaysaa taariikhda bilan waxaa lagu bartaa baaldahabyadii beledkeenna iyo kuwa baallahee dunideenna badan ka hal shaacbaxee dadku beedsadaan. ka hal shaacbaxee dadku beedsadaan. anna waxaan ku bari kuwa loo boree waagii baryaba boholyowga iyo loo qabo bardaha. adna beebiyow berri waa dambaad halbarbaariyo berri waa dambaad halbarbaariyoo lagu odhan balsheed wixii lagu baree lagu baree beledkeenna neriberi buu ahaa meel lagu bo'o nacamlaha barriyo dabadhilif biqiyo kumanaan basaas lagu soo budloo bilisteenna wacan lagu bayd furoon cidibaaji oo dhan. had iyo jaraale waxay taliskaasi uu doonayay in waxa loo fuliyuunbaa la fulin jiray. waaye wuxuu yidhi waxa taa beddelay nimankii bartaa sharaftooda bilan afbatayla iyo uub kala baxee waxaan bili lahaa boqortooye iyo bilad siin lahaa xasan yoonis baal koosaar bardiye ina biixi iyo rag burhaanle iyo hayboo burjiya. raggaa waad garanaysaa. waxa weeye xasan yoonis habane, waxa weeyaan cabdiqaadir koosaar, waa muuse biixi, waa raggii halganka. waaye hayboo burjiya waa hayba laambad. weli maan burqanna waxaan baanayaa banu saarayaa koodbuur markuu howlgalkii birjeex astir biladlihii ku badbaadiyey isagoo bad qaba kala baxay dallo 1993 bishii abril waxaa jiray birjeex operation howlgalkii loodhan jiray oo commandka ciidanka wataa uu ahaa howlgalka fulinayo uu ahaa allahuma salli calaa maxamed ninka la yidhaahdo ibraahim koodbuur. ninka lala baxayana wuxuu ahaa cabdilaahi astir sida meeshay noogu muuqata. waaye ku badbaadiyey isagoo bad qaba kala baxay dalloon aan baraarugee waxa aan burqaday oonan baalmarayn ma baqdow malloosh tur libaax biriyo turki beedsiiyo ninkii baari ciid iyo maal badheedh ugu baxay raggii. raggaasi waxa weeye waa raggii la fulinaya birjeex operation la fulinaya. waa malloosh, waa tur libaax, waa turki cabdisalaam turki ama cabdiraxmaan sida dadka magaciisa caadiga. maal raggaasuu ka warramaya. aan baraarugee waxa aan burqaday oonan baalmarayn goortaa bilayd inuu biixi go-ay oo loo baddiray. intii lagu jiray howlgalka birjeex operation, intii lagu guda jiray birjeex operation howlgalkeeda waxaa ku dhintay nin la odhan jiray biixi. waaye wuxuu intaa raaciyey afartaa bud iyo dhaha biimadii lala beedsan jiray cadowgeenna baas. weli maan burqane waxaan baanayaa banu saarayaa howlgalkii badnaa kii ugu ba'naa mabaqdow lixlaa boqolaal maxbuus ku badbaadiyee damalkaana baro. lixle wuxuu sameeyey howlgalkii la odhan jiray badbaada operation birjeex lagu fuliyey ee kooxdii shareere la odhan jiray ee uu hogaaminaya ay fuliyeen
ee maxaabiista badan lagu furtay wuxuu yidhi weli maan burqanna waxaan baanayaa banu saarayaa cawil beedsiiyo nimankii badnaa ee subax bilayd basaskii hawada balanbaalli sare bir afduubay ee baaqay rabeen lagu siiyey baad waana cawil cadami iyo raggii la socday diyaaraddii afduubay Somali Airline ayay intaasi ka warramaysaa weli maan burqanna waxaan baanayaa banu saarayaa hal abuur bartuu halgantii badnaa tira beedanye yacni nimanka hal abuurka iyo abwaanadu kaalin muhiima bay ka qaateen halgantii loo soo maray waddanka markaa kuwaasay ka warramaysaa wuxuu yidhi weli maan burqanna waxaan baanayaa banu saarayaa hal abuur bartuu halgantii badnaa tira beedanye balwa gaariya ugu baani jiray bamba abuhadraa ku ballaadhin jiray ganay baalluhuu baaruudda kulol kala beedsan jiray waaye cabdi qaysbur iyo dacar iyo basbaas laysku biiriyuu baanu siin jire dhadhle baanaduu dhabay weerar baas beladkii la yidhi ku burburin jire buudh mahadho qora boobaa ahaa boqorkii codkuna danankii bilaa iyadoo bastahay wuu baahin jiray ninkaasina waa maxamed moodel liibaan wuxuu yidhi wuu baahin jiray suudaan burjidhu bari taarayoo lagu taxay burhaan iyo faal bildhalad ina qaasim badi axmed ismaaciil diriye qaasim ina qaasim badi tixihii boqorane tol hadday bataan lama baajiyee awgeed dibaan afku waa bele awgeed dibaan waa axmed awgeedi markaa wuxuu yidhi afku waa beloo nukliyeer ka ba'an mar la baanayee waxaan bili lahaa boqortooye iyo bilad siin lahaa dayiboo biriyo cali ina bidiyo kood buur libaax bilistuu qabee waxa weeye dayib waa dayib duray cali ina bide waxa weeyaan cali ina bide cali saleebaan bide weeye kood buur libaax bilistuu qabee aamino gabadhii loodhan jiray kood buur libaax bilistuu qabee weli maan burqanna waxaan baanayaa banu saarayaa amin laysbartiyo burcaduur rayoon baabkeed furee boqollihii lixliyo xaamidoo bartaa inta loo buddhigay baabuurra iyo beebeeyo dhubay iyo bowno subax lagu dilay barti dagaalka la yidhaahdo burcaduurrey ee dhacay 17 Oktoobar 1984 ee uu watay ciidamada lixle waa maalinta loo qoondeeyay shahaadada aslam oo maanta aynu fadhino oo muddada dhan intii loo joogo maanta ay bishu tahay 2019 bishii Oktoobar 17 wacdaraa aslamtu ka muujiyeen 3 guuto oo taliskiisa sideed baraaba dilay labadii talisee hore labadii ciidan ee hore aslamtu way la kacday tii saddexaadna way isku boodsadeen oo way isla basbeeleen waxana weeye waa ka lagu dilay kaa u dambeeya lixle iyo xaamud ninka xaamud la yidhaaye uu hadraawi lahaa dabka xaamud shidayeen damin baan ku dhaabtee oo ninkaa waayahay baabuurra dhubay iyo bowno subax lagu dilay bartii waagaa bislaa inaad tarabi baar suudaan bodhiyo beerkiyo wadnaa hambodhsiisa curi maalintaa ninka la ydhaa inaad tarabi suudaan aad u qurux badan wuxuu yidhi weli maan burqanna waxaan baanayaa banu saarayaa dhoortaa bilayd cadowgii badnaa bixisaa waddee bur la daajiyo kun la baacsayo boholaha xirjadhan laga baafiyo bowdada kubkiyo biixiyaa ka jabe boqonaha la jare wadagaalkii ay ku baaba'een afartaa bud iyo dhaha biimadii cadowgeenna baas lala beydsan jiray nimankaa bastaa maan baaxad loo dadka bool hadhoo loo wada bodhaa badhaadhaha tusee weli maan burqanne waxaan baanayaa banu saarayaa ina xaashi boos maydhaadh bardiyo hebel barandhe iyo axmedoo biliya iyo niman badnaan guulaha barkada waa nimankii siyaasadda markaa majaraa u hayey weli maan burqanne waxaan baanayaa banu saarayaa gubar waaqo oo xidigii burjiru birbiriiqayaan furintii baridha burca ina miraa baaruud aroor ku ballaysimoo waxa garab bilayd dhadhaweyne baar iyadoo baqdoo marbaraad la'buu bunduqiyo rasaas ku bidhaamiye waxa weeye waa dagaalkii aid full scale words ama face to face words waa dagaaladii bishii May dhacay oo waxa dhacay dhowr dagaal oo dirandooriya oo gobolada waaweyn ee Soomaaliland lagu qaaday 17 burca la galay 28 meel kale la galay 27 30 iyo 30
oo hargeysa la galay intaaba waxa socday dagaallo dirandooriya oo waddanka lagu xoraynayo oo ahaa dagaaladii ugu weynaa ee full scale warsti marka uu leeyahay gura barwaaqo ee la dhashay Kenya meeyba lagu jiro doodu intaas u leetaa barwaaqo oo xididii burjiru barbariiqayaan furintii bariga burca ina mira baaruud aroor ku ballaysimo waxa garab bilay dhadweyna baar iyadoo baqdo mar baraal abu bunduqiyo rasaas ku bidhaamiye afarta bud iyo dhahabiimadii cadowreena bas la beedsan jiray waxba yaan budline tixdu waa bilkeed waa badii maqleed waana biqilsanoo badarkiyo ishii waan badax tiree shuhadada baxdiyo inta wali burtay wiilkiyo bu'diyo boqonuhu go'een waxay beerayeen bardada mal ahoo oday iyo barbaar lagu ciil bixiyo dalil baaxad loo xaq lagu barto diinteena bilan lagu baahiye wax weeyaan haldantii nimankaas ugu jireen wuxuu ahaa haldan kullu leh maanta nolosha wanaagsan aynu haysano ee diinta cilmiga ee dhanka iyo kala dambeynta aynu ku fadhino waa nimankii beeray diinteena bilan lagu baahiye aan baraaruure wali maan burqana waa xambaanaya oonan baal marayn xidiga budxeed mid baraaxidee adna beedsiyow shuhadada baxdaan bedeltooda war hadday raggaasi baxeen annaguna waxaanu qoladii bedelaysay oo haldankii soo galeen mid lamida in halkii laga sii amba qaado ayaa loo baahan yahay anna beedsiyow shuhadada baxdaan bedeltooda ahee ma ilaawin baaq buud laygu dhigay taariikhda boholaha xarjiran maasada boholaha xarjiran iyo taariikhda ay ka warramaysaa intaas ayay ku kooban tahay intaasaana kusoo dabadabeynayaa wasalaamu calaykum